haddii aad ka cusub tahay fadlan subscribe saar sii share gare saaxiibadiina la wadaaga miimayno toddobaad like inaan nagu dhiirigelisaan waana ku mahadsantihiin ii dhegayso si wacan ka yeel cudurkani midkii aad ugu dhowaan lahayd allah ka yeel sababtii aad ugu laaban lahayd salaadda iyo xuska allah ka yeel sababtii aad ku cafin lahayd kuwii ku dulmiyey soo xasuuso nimcooyinkuu allah kugu manaystay waxaad bixi jirtay adigoo qoslaya misana ciyaaraya laabtaaduna ay kuu deggan tahay waxaad ka fikiri jirtay sidii aad maal u samaysan lahayd balse ha ilaabin naxariista rabbi waayo markaa waxaad milkinaysay waxa ugu muhiimsan dunida kuwaasoo ah caafimaadka iyo laabtaadoo dareemaysa xasilooni sideed noqotay hadda waxaad noqotay mid u xiisa asxaab uu jeclaa kuwaasi oo uusan booqan muddo kuwaasoo uusan xitaa ku salaami jirin gacanta inuu xabadka gelsho mooye balse maanta intaasiba waxay noqdeen kuwo mamnuuc ah tani waa fursaddaadii aad allah ugu laaban lahayd walaal idhegayso walaalkayow cudurkani inta badan waxaa loo helayaa xal balse adiga nafsaddaada ma u heshay xal adigu ma fahantay cashirka fariintayda walaal adiga ayay kugu socotaa ee u laabo allaah cudurkani waa fariin ka timid xagga allaah ee aynu u laabanno allaah inagoo towbad keennay oo aynu weyddiisanno dembidhaaf iyo raalli ahaanshaha allaah اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجدام ومن سيء الأسقام الله وحان كامغان قلي برسكا والدة جودانك إيا حنونذا كوا وقدرا الله سبحانه وتعالى موسى سودجن عذر إلا وحول سودجي داو ديدنا ما أنت معهن وحان كأهين توبتك أهاتين يدا ربتي وحا بضتي معاصدا إي الله ونودن بداف يا الله نحرس هذا رب ونقوم نيسو آمين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.